caawa iyo faaqidaada wararka dunida qodobo waaweyn oo xiiso leh ayaan idinkugu hayaa barnaamijkan waxaana ka mid ah dowladda Imaaraadka Carabta ayaa mas'uuliyiin sare oo ka tirsan waxa ay kulan xasaasi ah la qaateen nidaamka Israa'iil gaar ahaan ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu Carabta ayaa markan waxa ay la soo baxaysaa wajiyo kala duwan Imaaraadkuna waxa uu doonayaa Israa'iil in ugu yaraan uu ka dhaadhiciyo hindisiyaasha Carabtu ay wataan ee ku saabsan sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka gaaloosan magaalada go'doonsan ee Gaza iyo waliba Netanyahu inuu dib u laqo candhuuftiisa ku saabsan in uu laqo dhulka daanta galbeed ee wabiga Urdun oo Israa'iil ay ka soo horjeedo in laga unka dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin Imaaraadka Carabtu waxa uu bilaabay waji u muuqanaya dalaalnimo diblomaasiyadeed mise waxa ka go'an fariinta dhabta ee Carabta inuu gacanta ka saaro ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn ee dunida ayaan idinla wadaagayaa khiyaartayna la socotay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu si ba'an u weeraray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxna uu tilmaamay in la gaaray waqtigii maxkamad la saari lahaa isaga iyo golahiisa wasiirada isagoo dhinaca kale ka hadlaya dhibaatooyinka ay ka geysanayaan magaalada go'doonsan ciidamada Israa'iil waxa uu yiri looma dul qaadan kara hadda xaaladda meesha ay taagan tahay dunida oo dhan haddii isku tagaan marnaba suuragal noqon mayso buu yiri in la aqoonsado dowlad Falastiiniyiintu leedahay oo dhisanta taa beddelkeedana waa in Israa'iil tallaabo degdeg ah laga qaado Erdogan ma ficil ayuu markan damacsan yahay inuu u bedelo siyaasaddiisa isla waxa ay ka dhigan tahay in wali nidaamkaasi Netanyahu uu hogaamiyo uu kaliya diblomaasiyadda iyo afka uu ku weerarayo warbixin ay qoray telefishinka TRT qaybtiisa afka Carabiga ee Turkiga ayaan barnaamijka idinkula wadaagi doonaa khiyaartayna la socotay dowladda Iiraan maanta waxay soo bandhigtay hubkii iyo gantaalihii ugu badnaa xilli tallaabooyinka Dahraan ashqaraar laga qaaday marka la fiiriyo tiknoolajiyada hubka ay gaareen iyo farsamada ay soo bandhigeen tani waa fariin ku socota dowladaha galbeedka iyo nidaamka Israa'iil ee bariga dhexe ku calan waleynaya marka la fiiriyo sida uu hadda u dhaqmayo warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaan sidoo kale arrintaasi idinku sheegi doonaa inta barnaamijka aan faaqidayo idilkiin baaqyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barrow show iyo waliba barnaamij kale oo xiiso leh aad baad u mahadsantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar aan ku horeeyo dhinaca waddanka isu tagay Imaaraadka Carabta iyo kulanka xasaasiga ah ee ka dhacay magaalada New York sidaad la socoteen madax kala duwan ayaa ka qayb gashay meertada 8aad ee shirka qaramada midoobay ee loo dhan yahay kaas oo ay ka qayb galeen madax ka socotay dunida inta ay ka kooban tahay qaramada midoobay ee 193 waddan gaaraya dowladda Imaaraadka oo arrimahaasi ka faa'iideysanaysa ayaa kulan la yeelatay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wasiirka amuraha dibadda ee wasaaradda aaniraada dalka Imaaraadka ayaa kulan la qaatay Netanyahu waxaana la sheegay in la isla soo bandhigay qodobo ku aadan sidii loo soo gabagabayn lahaa colaadaha ka aloosan gobolka bariga dhexe gaar ahaan magaalada go'doonsan ee Gaza sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda Imaaraadka ee WAM la yiraahdo Sheikh Abdullah bin Zayed wasiirka amuraha dibadda ee isu taga Imaaraadka Carabta ayaa magaalada New York kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu intii lagu guda jiray golfadhiga 8aad ee golaha guud ee qaramada midoobay sida ay baahisay wakaaladda wararka Imaaraadka ee WAM la yiraahdo labada mas'uul ayaa la sheegay inay ka wada hadleen xaaladda gobolka iyo waliba dadaalada caalamiga ah ee lagu xoojinayo dagaalada ka socda marinka Gaza Sheikh Abdullah bin Zayed ayaa ku baaqay in dowladda Imaaraadku ay hor dhigto buu yiri dhinaca Israa'iil dhowr qodob oo muhiim ah waxaana ka mid ahaa in degdeg loo joojiyo dagaalka xoogaysanaya ee ka taagan magaalada go'doonsan in la gaaro xabad joojin waarta oo aan muddo kooban lahayn in la ilaaliyo dadka rayidka ah iyo dhimashada ee halkaasi ka dhacaysa
in gargaarka bini'aadanimo si joogto ah loo gaarsiiyo magaalada go'doonsan iyo in la sii daayo maxaabiista gacanta uga jirta kooxaha hubaysan ee falastiiniyiinta sida uu hadalkiisa u dhigay. laakiin imaaraadka carabtu waxa ay tallaabadan qaadayaan iyagoo si weyn Israa'iil uga soo horjeestay wixii ka dambeeyay markii ay weerartay gudaha magaalada Dooxa bartamihii bishan, taas oo la soo wariyay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare xoog leh. arrintaasi weerarka waxay dhalisay walaac la soo gudboonaaday dowladaha qaliijka iyadoo isku dayo la doonayo in ciidamo wadajir oo carbeed iyo kuwa dunida islaamka oo u dhigma gaashaanbuurta NATO la dhisana ay fashileen saddexdan dowladood ee imaaraadka, qatar iyo weliba dalka sacuudiga kadib markii ay ka hor yimaadeen hindisaha soo jeedinta ah ee waddanka Masar ka yimi. warbixintu waxay sidoo kale leedahay waxa uu taageeray imaaraadka in laba dowladood iyo nabad waarta oo gobolka bariga dhexe ka dhalata la gaarsiiyo. dhankiisa Anwar Gargaash, la taliyaha madaxweynaha imaaraadka ee arrimaha dibadda, ayaa kulanka ku tilmaamay tallaabo geesinimo leh oo xoojinaysa dadaalada caalamiga ah ee lagu soo afjarayo colaadan. waxaana uu ku tilmaamay dowladda imaaraadku inay qaaday tallaabo loo baahnaa oo ay ahayd Israa'iil runta qaraar in faraha laga saaro. madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu si ba'an u dhaliilay oo la dhihi karo lahjad ka baxsan luuqadda diblomaasiyadda nidaamka Israa'iil. Erdogan ayaa ku baaqay in maxkamad la soo taago ra'iisul wasaare Netanyahu iyo golahiisa wasiirada, isagoo ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu yahay kawaanle ka ganacsada hilibka aadanaha sida uu hadalkiisa u dhigay. madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in arrinta Falastiin aysan dhammaystirmi doonin xitaa haddii la aqoonsado dowlad madax bannaan oo caalamku isku raaco ilaa iyo la joojinayo oo Israa'iil ra'iisul wasaaraheeda Benjamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa gacmaha laga qabanayo oo la horgeyn doono buu yidhi maxkamadda dambiyada si loogu qabto tacadiga ay ka geysteen magaalada go'doonsan. Erdogan oo la hadlay shir madaxeedka diblomaasiyadda ayaa waxa ay ka dhacay baa layidhi Istanbul ayaa carabka ku adkeeyay in aqoonsiga dhowaan dhowr dal oo reer galbeed ah ay u aqoonsadeen Falastiin uu yahay tallaabo muhiim ah, balse uu yimid buu yidhi goor dambe oo xeere iyo fandhaal ay kala dhaceen. waxa uu isweydiiyay sababta aan loo difaaci karin Falastiin ka hor inta aanay ku dhiman baa layidhi oo sidoo hadalkiisa u dhigayo 65,000 oo qof oo rayid ah. madaxweynaha Turkiga ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu ku kacayo tirtirid qowmiyadeed iyo weliba in uu u adeegsado gaajaysiinta sida hubka, isagoo burburinaya guryaha shacabka, xasuuqayana dadka rayidka sida uu hadalkiisa u sheegay. waxa uu yidhi muuqaalada carruurta gaajada u dhimanaysa waxa ay noqonayaan kuwa qalbi jab ah, mana aha xadda in la sii fiirsado. 11 dal ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay aqoonsaday dalka Falastiin, taas oo ka dhigaysa wadarta dalalka aqoonsaday 159 waddan. ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa khudbaddii uu ka jeediyay qaramada midoobe waxaysan noqon mid helin dhagaystayaal badan, iyagoo guud ahaanba dadkii hoolka joogay ay isaga baxeen kadib markii loo arkay nin aan mudnayn hadalladiisa in la sii daawado. madaxweynaha waddanka Turkiga ayaa bogaadiyay kooxaha caalamiga ee ku wajahan Gaza si ay u jabiyaan xanibaadda, isagoo cambaareeyay waxa uu ugu yeeray argagixinta dowladnimada Israa'iil oo uu ula jeedo in Israa'iil ay noqotay nidaam u taagan in uu caalamka ka sameeyo dhibaato walba oo qofka aadanaha dhibaysa sida uu qeexay. waxa uu sidoo kale dhaliilay fashilka golaha ammaanka iyo nidaamka caalamiga ah ee hadda ka jira dunida ee qaramada midoobe inay u shaqeeyaan buu yidhi hannaan u dhiganta mid naxuusa oo aan hadda ka shaqayn karin wax hal buuxa ah inay gaareen. Turkiga mar walba waxa uu garab taagnaan doonaa dadka dulman, ma ha ahaadeen buu yidhi Falastiin, Syria ama meel kasta oo dunida ka mid ah, ayuu Erdogan ku celiyay baaqiisa ku aadan cadaaladda iyo nabad waarta oo laga hirgeliyo guud ahaanba gobolka. madaxweynaha waddanka Turkiga waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha caalamka sida dheer uga dhawaaqa dagaaladaasi in la joojiyo ka taagan gobolka bariga dhexe.
xilli xiisada gobolka bariga dhexe ay u muuqata hadda inay aada u sii kordhayso haddana dowladda iiraan oo mar kasta filan karaysa in weeraro lagu qaado ayaa maanta soo bandhigtay gantaalo cusub oo casri ah iyo diyaaradaha iswada ee aan duuliyaha lahayn sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dunida waxaa muuqanaya in dowladda dahraan ay samaynayso tallaabooyin u eg u diyaargarow dagaal taas oo mar kasta qalqal ku ah nidaamka Israa'iil xilli isku soo dhawaashiyaha dowladaha waaweyn iyo imaaraadka qaarkood ee hadda u eg tahay inuu si weyn u sii karaar qaadanayo sida uu qoray telefishinka Sky News Arabic magaalada caasimadda ah ee Dahraan ayaa maanta oo Sabtida martigelisay bandhig weyn oo lagu soo bandhigayo hub culus oo ay ku jiraan gantaalo balastiga nidaamyada difaaca cirka iyo diyaaradaha aan duuliyo lahayn bandhigan ayaa waxa uu qayb ka ah xuska sanadlaha ee loo yaqaan isbuuca difaaca muqaddaska kaas oo Iiraan ay ku xusto bilowga dagaalka ay kula jirtay Ciraaq sanadkii 1980 dagaalkaasi oo socday 8 sanadood kana tagay dhimasho dad kor u dhaafaya 1 milyan oo qof iyo burbur baaxad leh oo hantiyadeed xilliga dagaalkaasi uu dhacay dowladda Ciraaq waxaa hogaaminayay Saddam Hussein oo kamid ahaa ragga ugu magaca dheeraad dunida Carabta munaasabadan ayaa ka dhacday fagaaraha loo yaqaan Baharistan ee ku dhow baarlamaanka dalka Iiraan halkaasi oo lagu soo bandhigay hub culus iyadoo sidoo kale lagu dhajiyay sawirka hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei iyo saraakiil ciidan oo dalka dartii u dhintay sida dowladda Iiraan ay sheegtay sanadkan bandhiga waxaa lagu qabtay goob fagaara ah halka xukuumaddu ay ku baaqday qabanqaabada safarka ciidanka ee dhaqanka ku ah baa la yidhi munaasabadan sabab la xiriira arrimo amni sida muuqatay munaasabadan laguma soo bandhigin gaarka ciyaarka ciidamada iyo wadooyinkii ay mari jireen hase ahaatee taa beddelkeeda waxaa la soo bandhigay oo kaliya hubkan waxaana arrintan uu ku sheegay golaha sare ee amniga waddanka Iiraan in looga gol leeyahay xaqiijinta nabadgelyada iyo sugidda siraha ciidanka xuska ayaa mar kale lagu xasuusinaya qorshaha culus ee ka dhashay dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan 1980 ilaa 88 ee qarnigii tagay kaas oo weli raadkiisa uu muuqdo iyadoo kumanaan miinooyin dhulka lagu aasay xilligaasi ay weli qatar ku yihiin baa la yidhi shacabka labada wadan ee hadda qatarta dareemaya dhinaca kale dowladda Iiraan ayaa fariinta hubkan waxa ay ka dhigan tahay in Israa'iil ay ku leedahay weli quwadda dowladani looma babacdhigi karo akhyaartana la socota ay tabinta qaybtan intaas ayaan ku ekeenayaa waa barroweydile nabaadiino Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sareeya holka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogta Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka